buuq xoogan ayaa ka qarxay xarunta baarlamaanka Soomaaliya oo maanta uu horyaalo mooshinka looga doodayo codka kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha oo isku dayay inuu hortago baarlamaanka una la hadlo si uu u difaaco xukuumaddiisa, balse taasi waxaa diiday xildhibaanada mooshinka keenay. xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ugu cadcad mudanayaasha doonayay in ra'iisul wasaare Saacid xilka ka dego ayaa ku dooday inaysan sharci ahayn in Saacid hor yimaado baarlamaanka. waxa uu ku dooday in haddii ra'iisul wasaaraha uu doonayo inuu isdifaaco uu hortago maxkamadda sare ee dalka. waxaa iyaguna dhinaca kala qayliyay xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaare Saacid oo doonayay inuu hor yimaado madasha kana hadlo, taasi oo isku dhac ka dhex dhalisay labada dhinac. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Jawaari ayaa muranka kadib go'aan ka gaaray in cod loo qaado in aan Saacid loo ogolaado inuu ka hor hadlo baarlamaanka iyo in kale. kadib codkii la qaaday ayaa 149 xildhibaan waxay diideen in Saacid ka hor hadlo baarlamaanka, halka 7 ay ogolaadeen 75 kalena ay ka aamuseen. codkaasi kadib ayaa Jawaari ku dhawaaqay in Saacid uusan ka hor hadli doonin baarlamaanka. haddii aad doonayso guri, haddaad doonayso guri yar, haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado, jikado casriya iyo weliba beerta nasashada oo aad u ballaaran iyo guryaha iridda weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu ammaankooduna uu sugan yahay, intaba waxaa kuula diyaaray sharikadaasi waxaa kaloo ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada in loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale, iyadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto. waxaa intaas dheer meel kastoo shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay toos yihiin, looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin. waxaa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toosa tahay, waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo weliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda, weliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada. wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan